وادن سلامي أخيرا ميل بأجوكتان ومركلة يو مولد حجالة وحرب أن كل وذاقو دور تكنيك أو كسابسن حرفة communication كأدكو أنفعيسو تكنيك كواد وحالة دها mirroring وحيو كيميد إريغا ميرا أو مرايدة وحانا لولا جيدا كوبيغا لكوبينايو قفك كالي مركو كلها اللايو أما لو قف آد سوريسانيسان أما واحد دون تاكوضا هذا الشان أما برنامج مشروع أما قناعسي أنا نحمره communication نوعه يهيبا ميد كوجيكا أو لوضا قف إسهرفر إذو markuu mid uu qofka kale koobinayo qaab u hadalkiisa iyo sida uu fadhiyo body language-kiisa waxaas dhan waxa la dhahaa mirroring-ku wuxuu marka cajiib ku yahay waxa xataa la sheegaa inay muhiim tahay qofka ereyada ugu dambeeyo markuu hadalka dhameysto ina adiga ku celisid tusaale ahaan qof baa barnaamij ka dhaadhicinayo oo mashruuc ama waxba idin dhaxmarayo wuxuu ku leeyahay mashruucan waxaan ka soo shaqeynay muddo aad u dheer waqti badanna waan soo gelinay waxay inaga qaadatay muddo ilaa 3 bilood ah kadib waxaa leedahay muddo ilaa 3 bilood ah saddexda eray ugu dambeysay sida uu sheegay kale 3 bilood ah hadaa ku celisid waxay tusinaysaa inaad dhageysanaysay wuxuu dareemayaa in aad fahmaysid waxa uu ka hadlayo wuxuu kaloo ku siinayaa energy ah inuu meesha hadalka ka sii wado una jawaab dheer ku siisii sharaxaad wuxuu ku leeyahay 3 bilood ayaan ugu qaadatay waxaana dhacay bilii ugu horeeyay noocaas wax u sameynay sida darteed qofkaas kale waxa leeyahay waxa uu ad ka faa'iideysaa inuu dhaxdiina idin dhaxmaro rapport oo labadiina isfahankiina iyo wada hadalkiina uu xiiso yeesho oo aad ku soo dhawaataan saa darteed marka technique-gan mirror-ka waxa isticmaalo diblomaasiyiinta madaxda caalamka wasiirada markay wadamada kale booqanayaan madaxweynayaasha kale hadda markay isbooqdaan aad baa looga sheekeeyaa xataa warbaahinta caalamka waxay qiimeeyaan labada madax sida isu qaabileen iyo teknikiyada ay isticmaaleen communication-kooda markay wada fariisteen hadallada is wadaarsadeen body language-kooda waa la qiimeeyaa mirroring-ka marka waxyaabaha la soo qaato ee badanaa isticmaalaan madaxda waxay ka caawinaysaa marka qof walba la hadlaysid barnaamijka kala hadlaysid noocu doono ha ahaado ama ganacsi ama shaqo ama interview haddii aad isku didid inaad mirror garaysid waxaa dhacayso in labadiina isfahankiina isu soo dhawaado waana technique la tijaabiyay ama xirfad ama xeelad la tijaabiyay oo shaqeysay oo adigana isleeyahay uu ku anfacaysaa haddii aad isticmaashid sida saxdana aad isticmaashid ma la doonayo inaad ka badbadisid oo wax walba qofka sameeyo aad copy garaysid ilaa lagu arkin qof micnaha de wareersan inaad tahay laakiin sida saxda ah aad isticmaashid oo degan oo balance garaysan wax badan ay ka anfacaysaa xeelada labaad ee communication-ka aan rabin inaan kula wadaago waxa la dhahaa labeling waxay aad u shaqeynaysaa marka labada qof ay ka wada hadlaysaa arrimo xasaasi ah oo emotional ah tusaale ahaan qof baa wada hadlaysaan arrinta ka wada hadlaysaan xoogaa oo emotional ah weeyaan qofkii wuu xanaaqay kadibna si xanaaq leh ayuu kula hadlay marka waxaad leedahay waxay u eg tahay inaad xanaaqsan tahay waxaan dareemayaa in hadalkaaga ay cara ka muuqato markaad tilmaantid marka labeling-ka waa inaad tilmaamtaa aad label garaysaa waxa markaas uu qofkaas emotionkiisa negative-ka uu yahay ma la doonayo inaad dhahdid maxaa dhacay why aad u xanaaqday waxaa la rabaa kaliya inaad u qeexdid u tilmaamtid aad label garaysid emotionkaas negative-ka ah kadib qofka waxaa la dhahay waxaa suuragal ah inuu istajiyo taana waxay ka keeneen baaritaan ee khubarada maskaxda sameeyeen oo lagu ogaaday qaybtan maskaxda oo emotionka u xil saaran oo la dhaho amygdala waa qayb kamid ah maskaxda oo qaas ahaan shaqadeedu tahay inay controlsho ama soo deyso emotionada oo maaragtay carada ama cabsida ama farxadda oo marna maaragtay badiso marna yarayso marka waxay sameeyeen scan-kan la dhaho fMRI oo maskaxda loogu talagalay saareen waxayna dhowr qof markaas u dhiibeen la dhahay sawiro cara gelinayo waxa ka muuqdo qof walba markuu fiiriyo waxa la weydiiyay waxa la dhahay label garay markaas qeex waxa meesha aad ku aragtid dareenkaaga muxuu yahay mar alla markay sheegaan siday u xanaaqeen ama dhibaatada baartay uu ku dhaliyay sawirka markay arkeen waxa scan-ka laga arkay maskaxda marka qaybtaas amygdalaha inuu negative-kii emotionka uu soo saarayo uu yareeyay mar walba qofku marka qeexo dhibaatada waxa ay tahay emotionkaas negative-ka uu sheego waxay ka arkayeen scan-ka electrical activity-ga negative-ka ah maskaxda qaybtaas amygdala la dhaho inay hoos u dhaceysay taasay marka u isticmaalayaan communication-kana waxay leeyihiin labada qof markay wada hadlayaan hadduu mid ka mid ah especially marka laga hadlayo wax emotional ah qofkan hadduu hadalkiisa kor u qaado ama uu xanaaqo waxaa leedahay waxay u eg tahay inaad
carootay waxaan dareemayaa in hadalkaaga uu kore u kacay qofka markaas waxay ku leeyihiin waxaa degaayo negativekii maskaxdiisii soo saaraya emotionkan markaas qofka uu soo ku tusaayo saas darteedna wuu degayaa waxaana suuragala inaa adiga influence ku lahaatid adigana markaas aa controlshid wada hadalkiina midda ugu dambeysa aan rabo inaan la wadaago waxaa weeyaan mid caan ah oo professor hadda ka hor 70meeyadii jaamacadda UCLA oo Mareykanka uu soo saaray professorkan waxaa lagu magacaabaa Albert Mehrabian waxaana uu soo saaray rule la dhaho 73855 wuxuu ku leeyahay communicationka dhanba marka hadalka qofka waa kaliya 7% qaas ahaan marka laga hadlayo tanna waa emotionka wada hadalka oo emotionka ku dhisan marka uu maaragtay labada qof ay dhaxmarayaan waxaa lagu leeyahay qofka 7% kaliya ayaa hadalkaaga micno u sameynayo 38% waxaa micno sameynayo markaas toneka qaabka hadalka u dhaxday waxa maaragtay hadalkaaga kor mu u qaadnaa hoos mu u dhignaa ma bubsiinaysay toneka hadalka qaabka uu kaaga soo baxay ayaa micno weyn sameynayo hadalka aad dhahday waxa ka qiimo badan ama ka saameyn badan qaabka aad u dhahday boqolkiiba marka 55 soo hartay waa body language kaaga la leeyahay oo ah qaabka marka aad hadlaysay body language kaaga iyo wajigaaga isbedelka ka muuqda indhahaaga afkaaga gacmahaaga haday iskhilaafaan waxa aad sheegaysid iyo qaabka aad u soo saaraysid iyo body language kaaga iyo sida aad jirkaaga u isticmaalaysid iyo gacmahaaga waxa la leeyahay waxba qaldan tusaale ahaan hadii aad ka hadlaysid arin aad naxdin u leh oo qof aad uga sheekeynaysid inaad maaragtay ka naxday haddana gacmahaaga iyo body language kaaga wajigaagan ay ka muuqanin wax muruga ah waxay cadeynaysaa in arintaas aysan ku saameynin waxaana mar walba isku daydaa inaad isticmaashid saddexdan technique aan kuu soo sheego midka hore ahaa mirroring oo aad copinaysid qofka kale waxa uu sameynayo iyo qaabka uu hadlayo midka labaadna ah labeling in haddii qofka emotionkiisa uu kaco waxa uu markaas ka xanaaqsan yahay ama cara hadday ka muuqato inaad tilmaantid oo si uu u dego qofkaas tan saddexaadna waxaa waaye rulekan aan idiin sheegay hadda oo ah 73855 rule oo muhiimadiisu ay tahay kaliya qaabka aad u hadashid iyo body language-keeda inay body language-kaaga inay ka muhiimsan tahay hadalka aad sheegtay waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iiday haddii aad hore u maqashay ama aad isticmaashay commentiga igu soo reeb waxa aad ka aaminsan tahay tekniikyadan haddii aad tekniikyo kale ka duwan oo aad garanaysidna commentiga sidoo kale inoogu soo reeb khayr badan ayaan idin rajaynayaa mahadsanidin